dhacdo ra'yi caamka caadiga ah ummadda dhextaala wuxuu ku leeyahay waxaan doonayaa dhulkaas inaad ugu maalgelisid buu ku leeyahay wadi maxaan kugu maalgeliyaa niman hadda ka hor meel halkii ay kala googoosanayay oo dadka magaalada majority-ga oo asxaabteeda ahaa waxay sameeyeen dhul bay arkay dawliga ayagoo si maartay ugu soo durkay waxaan ka shaqeynaysaa iska daay wixii tari intaadii waa ku haynaa adiga intaadii wuxuu yiri maartay ragaaga ninka ta anu inta ay u aasilaana waa haystaa dunidana dhul kale oo aan ka sameeyo hadhow aan eedo ubadkaygu eedo ganaca layga diro amba kasar ugu dhaco uma baahna dadku haday fahmi lahaayeen ina aqoonyahan dhexdo isaga xiran tahay oo kiyaalo weyn maartay naguma filla waxaan u baahanahay aqoon dadka loo daadajiyo hubka qalbiga aan ka hubaysanahay baa wuxuu ka dareekan gacanta ka hubaysan sideedana al-qatl محيي القرآن الفتنة أشد من القتل يعني ديلك ديك لا دادني فتنة ذا كتر فتنة إما كخلافات كلا جهل يدلك أوينا وحين البروفيسور نورتين إن ما ارتباش نقول أكو كمنات ما هي أكله بحش الرجوعية بحش نقول ده في كرم يسوع عالم أنت لنا ولا كونفرنت أوف إنترست ملك سلعي تقرب على سبايستا دول اللي بنقول ده في كرويد برجع ده حكي السعودة يوكرين يراشيو كالسعودة ماله البدنية واحد سبايستا ورحال كان يقدر يقدر كماي بحش بعنا وده في كرويد وأنا سيدا واتوير نكيل هبل الشعلاوي سيدي هم قريب عن أحمرن نحن الشعلاء بعد أحمرن فأنت إسكود جام بيقولوا إسلام دقيقة هذا يدتكم قريب أحمر waxaan rajaynayaa waxa weeye jahliga iyo gaajada aafa cadiima waa aqoon-yahanadana waxaan marti kaga nahay u baahana in ay dhiirigelin fara badan ardayda ku sameeyaan waxaan u baahanahay arday wadaniya in la soo saaro arday wadaniya in la soo saaro u baahana arday aan waxa weeye iskarigu wax badan baan ka sheegay dugsiyada waxaan rajaynayaa in ay arday askar wadaniyiin soo baxaan ومعلن ودنيا صوابحه وذات ودنيا صوابحه عسكري كلي wax ma hagaajin karo runtii caqabado badan ma ku wax arkaysaa askari daalan oo duruufo badan mararka qaar qaba oo cadceeda taagna ba gaari wuxuu oranayaa wariya maxaad hubsideetaa markaasuu professorkii dhix intuu yiraahdo waxaan askarta aan la soo tababaran habaarka qabo in ka buuriga ku tufaya waxa la rabaa anagu dhanba aggressive waa wada xanaaqsan gibigeenuba waxa la rabaa in dabeecadeenu iyo aqoontu ay qulubta u daadagtaan rabaa oo bahashu ay hoos u daadagto halkaas qoladii mahadcelinta oo maartay dhalinyaradii markay isku qabsadeen odayaashii nabadda annaga keenay professorku naguma soo darin oo annaga isku mahadcelinayno wuxuu yiri haday ku moosan kartaa la isku muujaa annaga waxaan sheeganaynaa waxa weeye nabadda waa u nasteexa gaaliya islaam wuxuu yiri nabadda waa u nasteexo waa u gogol nasteexad gaaliya islaam nabadda inaan u baahnayn ma jiro waa tii Soomaalidu tiri nin raba gogoshiis maxay tahay dadka oo dhan baa laga wadaa ninku xaaladda u qaaday gabadhuna nabadda u baahan tahay nin raga gogoshiis waa nabad baali mar hadaad nabad weydid waxaad ka garanaysaa inta yar ee xurgufta dadka sokeeyaha dhexmartay himinkii xaafadiina ku maqantaan waa yar ladaysa himinkii adiga ku maqantaan waxa jeclaysan meelaha inay soo warwareegay xaafada waa ka baqayay awanooda waxa la rabaa in aan soo saaro in wacay kulamada noocaan ay balaadhaan iyadoo cidna aysan ugu maalgelin cidna aysan dana gaar ah naga lahayn dadku dantooda inay ka shaqeeyaan waa muhiim isbeddelku anu waan lahaa aqoon aan kaga shaqeysto dunidaas kale iyo meelaha aan riskiga badan oolin haddana waxaan u doortay cidna iguma torture garayn inaan amni ka shaqeeyo dekan iyo daal iyo deynba waa ku qabnaa waana ku qanacsana broad baan kuna sababtu waxay tahay isbeddelku samada ka imaan mayo adigu haddaanad qayb ka noqon oo adigu aanad gacmahaaga waddanka ku hagaagsan muhiimna ma aadana agtiisa wax badan lagama bixiyo ilaahay agtiisa wax badan yaalaan abaalmarinta dhabta waxay agtaa la amaam ilaahay ilaahay hortiisa run ahaantii waxaa loo baahan yahay in aynu qof walba meesha uu joogo shaqada ka qabto dadka ugu faraha badan waa arday guri kasta ama jaamacad ha u foofo amba u foofo iskuul dadku guri kasta 5 qof markay joogto 3 amba 4 ka mid dadkaas waxay aadaysaa jaamacad iyo iskuul bay aadaysaa inteena marka hadaynu nabadda ka shaqeynano oo nabadda u guntanahay oo qabiilka meel iska dhigno qurmoon qabiilku ma xumo anigu ma nabay anigu waa bay caadi shirarka inaan ka hebelka reebel caadi baan u arkaa laakiin waxaan nacay waa qabiilada qurmoonka nabi maxamed tukadiga taawe ustaadkuna macallin dhabayay waxaan ogaaday markuu mawduuca qofku markuu yahay qof dadka wax fahansiin kara waa markuu uurkaaga dhex galo waa isleedahay tarow ma adigu kula sheekaystay ma uurkaagu ku dhex jira markuu isdul taagay foolxumada qabiilku leeyahay
iyo inaanay qofku markuu leeyahay horta sideeda annaga leeyahay waxa ka qurba inuu aniga yiraahdo halkaana fulinimada qofka waxa lagu ogaa annaga markuu yiraahdo waxaan Soomaaliya ku arkay waxa isqorkiga ku jira qof soo kacay doorkii waa jobless shaqayn maayo waxba kama shaqeeyo doorkii soo kacay deetana qadada wuxuu u wacayaa midii isku jifayeen ama saaxiib ay yihiin waxa laga yaabaa haduu ka waayay inuu gumeed u aqoonsado haduu ka helana uu soo mahadcelin annaga askar waa mid kamid ah dabacadaheena la yaab kale waana meesha qalbigeenu ka laabteenu waa dacay meesha qalbigeenu ka wasakhaystay in jirka iyo la daahiriyo dhar nadiif ah la qaato waxa ka fiican in qulubta la daahiriyo qofku muxuu yiri saaxirna Allah ka dhigay isaga uu amalada la qabto oo Ilaahay looga fogaado wuxuu inuu subax u kala qaban karo dhalinyarada da'yarteen xalan waxaan ka sheekeynay waxaan arkay kuwa waxay ku galayaan sawirray waxay ku galayaan daar reerood waxba shaqo uma soo kacaan waa arrin aan qurux badnayn runtii muuqaaladaas iyaga waxba tarimayaan waxay iska duubayaan muuqaalo qurux badan daarta iska duubayaan ayagu male oo waxa iska leen reerood mahad cilmiyaan haysin kama ahan yani waxay gadayaan garan kari meeshid shaqana u kalimayaan maxayna haysta hada dadka miyaan dad amar ku dhacay yay isbedel ka sugayaan marka dawladnimadeenna nagu ogtahay saytahay iska sheekeynayno wax badan baa habsan ka itaalku ha keeno hagari ha keento isku qaramayna ciladu waa jiraan ciladaha ugu badan waxay ka yimaadaan dadka conflictiyada dhul bay ka yimaadaan waa laba qof waani istaagacagmiga kale waa istaad Saciid waxay ka imaanayaan 20 anagu aan soo qabsanay ka imaan ka bacdina laba reerood waa weyn bay u gudbayaan tartiib dadku haddana anagu hurinayno waxaad arkaysaa nin xayraan oo beerkiisu beer ka xigay oo qabsanaya kuna deetana adigu ku imaanaya ku wareed dhul baa inoo hayaay sida dhacdo ra'yi caamka caadiga ah umada dhex taala wuxuu ku leeyahay waxaan doonayaa dhulkaas inaad lagu maalgelisid buu ku leeyahay wadi maxaan kugu maalgeliyaa niman hadda ka hor meel halkii ay kala googoosanayay oo dadka magaalada majority-ga ah oo asxaabteeda ah waxay sameeyeen dhul bay arkay dawliga ayagoo si maarta ugu soo durkay waxaan ka shaqeynaysan iska daay wixii tari intaadi waa ku haynaa adiga war intaydii maxay ahayd baan intaadi wuxuu yiri maarta ragaaga ninka ta anigu intii lagu aasilaana waa haystaa dunidana dhul kale oo aan ka sameeyo hadhow aan eedo ubadkaygu eedo ganaca layga duro amba kasar ugu dhaco uma baahna dadku haday fahmi lahaayeen inaanay lacagtu inaanay qiimo lacagtu wax ma sameeyay dadnimada wax sameeysa lacagtu way sameeysaa hadii wanaag looga shaqeeyo Ilaahay waa lagu dhawaadaa oo aad ku sameeysid wax Ilaahay raali ka yahay oo aad dadka ku kala islaaxaysid laakiin hadaad aamintiin in lacag wax badan ku goyn kartid farq baa tahay marka waxna kuma goyso lacag dadnimada wax goysa oo waxa wax goysa qiyamka qofka iyo cirdiga iyo sharafta iyo qofka inuu dadnimo ku hubaysan yahay waxaan dardaarmayaa in arday wadaniyiin la helo macallimiintu in badan ay ka shaqeeyaan in la isku dhimriyo qabiilada foolxumadeeda in laga fogaado inta aynu ka daba wareegano isbedelka in dawlad noo keento ama shakhsi noo keeno isbedelku sida cadaalada soo baxdo kala intuu ka hal mar dushayada mari maayo laakiin gacmaheena isbedel aan ku keensanay oo nabadeed baa loo baahan yahay aad wada mahadsantiin